gudoomiyaha hay'adda diiwaanka sakada qaranka Somaliland Sheekh Dr. Saciid Maxamed Faarax ayaa shacabka Somaliland ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo wadajirka shacbiga Somaliland. Sheekh Dr. Saciid Maxamed Faarax oo arrimaha sakada hadalkiisa waxa kamid ahaa intaas hadii ay naga dhamaatay waxa imika inoo haro kaliya waxa weeyaan in hadallada xiniftale ama dhibaatada leh ama calool xanuun kale aynu iska ilaalino in dawladeena loo duceeyo madaxweynaha cusubna inagu tahnideen inaynu duceyno isaga dawladii buu soo dhisay hawlihii baa lagu jiraa in Somaliland halka ka sii socoto oo horumarkii iyo ictiraaf raadintii iyo khayraadkeena la soo baxnay inay ku mashquusho ayuu waajib ku yahay in gacanta la isqabsado oo la walaaloobo waa arrin muhiim weeyaan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa in badan buu inoo sheegay wa ta'aawanu 'alal birri wat taqwa. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo sheegay aayado far badan oo cadaynaya wa'tasimu bihablillahi jamii'an wa la tafarraqu. Ilaahay subhanahu wa ta'ala xarigiisa qabsada oo adkaysta oo ha kala tafraaruqina in la kala tagin in la kala tafraaruqin in ummaddu waxay ummaddu ummad ku tahay iyadoo wada joogta wada jirka wada jooga wax wada qabsiga ayaynu ummad ku nahay معارض إنه هاي محافظ أنت دورشة ضايع عيسى معارض محافظ ليه لكن مر الله لي مركز دورشة ضايع نور دماته وينور دماته إلهي سبحانه وتعالى فلقي أنت تقاي ولا لوبان ومن لو جسوا ذا تشيستو أمريكا من لو جسوا تشيستو وذا تشيستو وذا قبسية من لو جسوا ذا تشيستو إن ذلك السومال لأنه هو مرجعه إنه اعتراف له إنه خيراتك ينمعونك إلهي سبحانه وتعالى طبيعي جوسية ولا صبحه إن ميزانية دينا روك بقول مليون أي بلايين قاعدوا وحيلا سيت حقيقة إنه كده ذاله إنه وقت قلينه وإنه تدنيمدينية دينتين iyo dalkeena oo midba insha Allah taala oo ku xiriyay. Luqman Maxamed Faarax bulshada